السلام عليكم. تركيا waxa uu ku guuleystay inuu xariga ka jiro maalnimadii Jimcaha buundada ugu dheer dunida ee dul martabada. Buundadan ayaa loo aqoonsaday inay tahay tan caalamka ugu dheer waxayna kaalinta koowaad ka bixisay buundada Akashi Kaya oo ku taal dalka Japan oo loo aqoonsaday inay tahay tan koowaad. Buundada ayaa mid muujinaysa taariikh soo maray Turkiga haddii ahaan lahayd balaceeda, dhirirkeeda iyo xarka jirkeedaba. Waxay ka wada tarjumaysaa dhacdooyin taariikhi ah oo Turkiga xusuusto sanad walba maankiisana ka bixin. marka hore video laga noo saaray channelka subscribe dhaho mahadsanid. buundada ayaa dul marto marinka Galivoli ee magaalada Kankala ee waqooyi galbeed Turkiga waxayna isku xirtaa labada qaarood ee Aasiya iyo Yurub wuxuuna dhismaheeda socday muddo 5 sano ah waxaana xariga laga jaray 18 Maarso 2022 oo ku aadaneed maalinkii ay Cusmaaniyiinta ku guuleysteen dagaalkii ay ku soo qaadeen isbahaysigii doonayay inay qabsadaan caasimadda Turkiga ee Istanbul oo ay hogaaminayeen Ingiriiska, Faransiiska iyo Australia iyo New Zealand. dhacdadan ayaa ahayd guul u soo hoyatay dhammaan muslimiinta kadib markii dowladahaas go'aansadeen inay qabsadaan qalla oo ah magaalo Turkiga ku taal dhinaca marinka Dardanelles ee u dhaxeeya badda Mediterranean iyo badda Madow kadibna ay isu gudbaan caasimadda Turkiga ee Istanbul bilowgii 10kii sano ee labaad ee qarnigii hore gaar ahaan 1925 dagaalkii koowaad ee adduunka ayuu dhacay dagaalkan khilaafadii Cusmaaniyiinta oo aydan awoodoodii hore aysan lahayn ayaa go'aansatay sidii ay ugu hortagi lahayd waxayna juhdi badan gelisay sidii ay u jebin lahayd xulafadaas. طبعا ما هن عارفوا مركي أود رقالها يتن ملترية أو أي هستان دولدها دجالكي أيانا بلاده وحنا الأسبوع ذيك سيد هوبك ووين بمبوين كخترتها عيدا كبدا يكرر كبا يعني سائد أيام الأسبوع باش الدولد والبحيرة يستي أودي تنودن بس لكن نسيب هناك دجال كان أو عام التاريخي أيام قصة ماضي قول أي ciidamadii Cusmaaniyiinta ay ku jibiyeen ciidamadii isbahaysiga ahaa ee ay hogaaminaysay boqortooyadii Ingiriiska waxaana dhanka isbahaysiga looga dilay ilaa 300 oo kun oo askari dhanka Cusmaaniyiinta waxaa la sheegay in looga ay ugu shahiideen ilaa 250 kun oo askari sida meelaha qaar la soo wariyo. dagaalkan iyo dagaaladii kale oo ay dowladda Cusmaaniyiinta qaaday ayaa galay taariikhdeeda gaar ahaan maalintii ugu dambeysay ee arrinta go'aamisay waana mid muujinaysa ummadda markay ku taagan yihiin xaq ayna adkaaneen kuwa baadilka ku taagan rabbina uu ka hiilineen kuwii rumeeyay waana mid keentay inay niyada ka jabaan sida ay filayeen sida xaalka oo noqdana ee baashu tahay kaaf iyo kal dheeri waana markii Alle quraankiisa oo nagu dhahayo badana qolo yar oo ka adkaato qolo badan uguna adkaatay idinka Alle iyo tala saarashadii Alle taas waxay noo cadeynaysaa in haddii qolada yar ay ku taagan xaq diinta islaamka ay ku taagan iyo xaq ay ku taagan badnaasho oo soo waxtarin oo markasta Alle uu hiilinayo kuwii xaq ku taagnaa asigu rumeeyay haday sabraan oo ay ku adkaystaan qaal Allahu ta'ala qaal alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تركيا ayaa buundadan u bixisay 1925 yani magac ay u bixisay oo wixii sanadkii ay ku guuleysteen dagaalkii 1925 ay u bixiyeen madaxweynaha Turkiga in Erdogan oo soo hadal qaaday sababta loogu bixiyay sanadkaas 1925 waxa uu dhahay inancı uğrunda ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada ummad mu'miniin ah gobonimada jecel kuna qanacsan inay u dhintaan difaaca islaamnimadooda ayaa kacday waxaana ciidamadii ugu awood badnaa adduunka ay ku waayeen wajigii qulubtii daacad u ahay inay furtaan magaalada Janaaq qal'a waxaana ku guuleystay xaqii waxaa cadaatay in aanay jirin cudud iyo hub hor istaagi kar ummad nafteeda u hurta sidii ay u ilaalin lahayd dalkeeda hooyo iyo xurnimadeeda. dagaalkii Galivoli wuxuu ahaa mid qaati u noqday geesinimada qarankeena sidoo kale dhirirkeeda ayaa buundada ah 318 mitir oo ay ka micno tahay saddexda waxay ka soo gaabiyeen oo ama ay ula jeedaan bisha Maarso 18 waxa ay ula jeedaan maalintii ay jibiyeen ama ay ka guuleysteen isbahaysigaas oo baash waxay naqaan 318 mitir
halkaas ayay ka bixiyeen. Sidoo kale ballaceeda ayaa ah 2023 mitir, waxayna dhaheen waxaan ka wadnaa 2023 maalintii aan u dabaaldegi doono 100 sano guuridii kasoo wareegatay aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga. waxayna dhaheen waxay ka turjumaysaa yoolkeena weyn, laakiin Turkiyow soo ma hor dhicin sanadka, maxaa ula sugi weyseen 2023 si ay baasho kugu noqoto. lacagta ku baxday dhismaheeda ayaa ah 10 milyan oo liir oo u dhiganta 1.2 milyan oo dollar, waxaana dhismaheeda iska kaastay shirkad Turkiga ay leedahay iyo injineer kasoo kala jeedo Turkiga iyo Kuuriyada Koonfureed. waxaana kusoo gabagabeynayaa inta aan isku mashquulsaneen dil, dhac, musuqmaasuq, qabyaalad ayay dunidii naga tagtay, heer la gaaray in bada hoosteeda wadooyin laga samaystay iyo laamiyo korkeedana la maro, adduunyo iyo aakhiraba seeganaya. markaas baan ku faanaynaa geesinimo aan dhaafsiisanayn afka. waxaa macquula in aad maqasho oraahyadan: walle haddii Falastiin deris nala ahaa lahayd, Israa'iil may gumaysteen. kuwa ka liita ayaa dalkaada gumaysto, yacni dalkaaga joogo. saaxiib, horta kuwaas aan iska saarno. intaas ayaan jeclahay in video kusoo ekeeyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.